gudoomiye annaga maanta idin yeedhnay waxaanu idinku yeedhnay inay horta marka hore kulanno annagu maadaama aanu nahay guddi cusub baanu nahay guddida arrimaha bulshada cusub baanu nahay marka horena idin lamaan kulmin imika noogu horeysa marka waxaanu idin leenahay soo dhawaada waxaanu doonaynaa inaad warbixin guud naga siisaan hawlaha aad qaranka u haysaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa guddida arrimaha bulshada golaha wakiilada Soomaaliland oo gudoomiyaha Amina Fariid ay hogaaminayso iyo xildhibaanada sharafta badanba marka waan ka mahadnaqaynaa inaad halkan noogu yeedhaan si aynu uga wada hadalno hawlaha qaranka aan ugu xilsaaranahay halkan waxaan ku soconaa guddidii hay'adda shaqaalaha amba komishinka hay'adda shaqaalaha iyo agaasimihii guudba haddaan warbixin kooban ka siiyo hay'adda shaqaalaha iyo arrimaha qaranka ugu xilsaaran tahay si guud hay'adda shaqaaluhu waxay mas'uul ka tahay maareynta iyo maamulka shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka kooban dhammaan hay'adaha dawliga ah wasaaradaha iyo hay'adaha kaleba shaqooyinkaygu waxay u badan yihiin shaqo maalmeed routine ah oo soo noqota hadday tahay cabashooyinka iyo wixii aan shaxmarina ee ka yimaada shaqaalaha dawladda oo qaabka aan shaxmarinta u dhacdaa waxa weeyaan hay'ad kasta dawladda waxa leedahay guddi aan shaxmarin ay leedahay oo hogaamiyaha agaasimaha guud guddida aan shaxmarintu markii qofka wixii waajibaadka ka gutaan waxay u soo gudbiyaan hay'adda shaqaalaha oo iyaduna la guddida aan shaxmarinta heer qaran taas ayaduna go'aankii wasaaradda amba hay'adda ay ka qaatay qofka shaqaalaha dib u eegta markaas uu soo baxo go'aanka madambaysa waa hawl maalmeedkan maalin walba qabano sidoo kale waxa kamid ah waxa loo yaqaan dalacsiinta iyo darajo beddelka shaqaalaha dawladda oo iyadana si maalinle aan uga shaqeyno waxa kale oo kamid ah hawlahan runtii sida maalinlaha uga shaqeyno waxa ku saabsan transferska shaqaalaha iyo cabashooyinka kale ku saabsan hadii mushaharooyinkooda amba arrimaha wax ka yimaadaan intii aanu joognay laba barnaamij runtii aad waaweyn ama saddex barnaamij aad waaweyn baan ka shaqeynay mid wuxuu ahaa barnaamijka madaxtaabashada shaqaalaha dawladda oo dhammaan shaqaalaha dawladda oo dhan degmo kasta gobolka Soomaaliland aanu madaxtaabasho ku soo sameynay soo tirinay wasaarad walba aanu qof walba u yeernay maadaama shaqaalaha dawladdu ay ku diiwaan gashay waxa loo yaqaan biometric registration qof walba waxa laga qaaday indhihiisa iyo farihiisa laga hayaa dadna qof walba markuu yimaado waan hubinaynay marka hawshaas runtii muddo dheer socotay haddana gabagabo ku dhow ayaan sameynay soo kale waxaan qabanay barnaamijkii hawlgabka shaqaalaha dawladda oo markii koobaad Soomaaliland la dhaqan galiyay xeerkii hawlgabka oo iyagana shaqaalaha hawlgabka oo dhan laga saaray systemka sidoo kale waxaanu gacanta ku haynaa barnaamijkii darajooyinka shaqaalaha dawladda saad ka warhaysan shaqaalaheenu darajooyinkoodu oo kuwii basic ahaa ee A iyo B iyo C iyo D laakiin qofku inuu u daco si horsantaba A1 A2 ilaa A9 uu ka gaarayo iyo B1 B2 sida C1 C1 C5 hawlaha soo dhamaan ku xisaarnay wali qofkeena shaqaalaha dawladdu fresh graduate secondary ka soo baxay jaamacad oo degree haysta iyo qofka PhD waa isku darajo labaduba waa A1 laakiin darajooyin kale lagu kala saaray ayaan hawsha gacanta ku haynaa marka shaqooyinka runtii aad ka u ballaaran ayay hay'ad shaqaaluhu gacanta ku haysaa shaqaalaha waddanka oo dhan bay maamushaa shaqaaleysiintu waa waxa ugu yaraan qabano oo qof meel ka baxay iyo qof geeriyooday iyo hawsha ugu yar ay ka tahay laakiin boorshanka ugu weyn waa maamulka shaqaalaha dawladda iyo maareyntooda marka aad iyo aad baa u mahadsantiin haddii tiimku wax ku darayaan uga bixi doonaa insha Allah guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha Amina oo gabadha kaliya xildhibaanada ku jira golaha wakiilada maanta shir gudoominaysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkan ugu soo dhaweysaan aad iyo aad noo mas'uulina golaha wakiilada ee guddida ku jira kulli gudoomiyaha dhameeyinta badan waxa uu ka tagay ma ku daray ku noqon maayinta hay'adda shaqaaluhu waajibaadkeeda gudoomiyaha sheegay shaqaaluhu kulli xuquuqna way leeyihiin waajibaadna waa lagu leeyahay sida xeerka shaqaaluhu dhigayo waxa ku jirto kale shaqooyinkan qabano fasaxa shaqaalaha waxbarashada u baxa iyo shaqaalaha caafimaad u baxa ama heladooda ku timaado
fasax uu siiyey sharciga iyagana ku jirta oo dee qofba xanuunsanaya qofba ehelkiisa xanuunsanaya marka fasax sharciyaanu siinaa fasaxuna external iyo internal buu kala yahay kulliyadii xeerarkeeda ka akhriyo soo sameeya fasax institution-ka sameeya wixii 2 bilood ka yar laakiin annagu wixii 2 bilood dhaafsan 6 bilood sanad dee qof la duruuftiisa shaqooyinkaasaan inta badan loo eegaa oo dhibaatooyinka qofka marka uu keeno dee cadaymihiisii yaanan ku dari waxaa kaloo jira iyaduna shaqadii aanu haynoon si maxaan ku dhaayay shaqaalaha geeriyadoo kale oo iyaduna hayn wax sharciina dee aanan waajibinayn in qofka ehelka lagu bedelo laakiin iska gentleman agreement iska qofka ehelkiisa aan u fududeyna shaqaale qofka lagu geeriyado wada intaas wax dhibaan baa noo imanayo iyo qof walba dad duruuf haysta in jirta walidii xeerna laga soo saarin oo ma waan kuwaas noo fududeynaa in qofka ehelkiisa lagu bedelo dama dirawal ka shaqeynay muddo saarid hiblaayo oo dhinto inankiisa oo gaadhay ka xayn uu joogan sida uu saasan ugu dhameynaa waxa kaloo jirta gobolada dalka markii ugu horeysay anshax marinta marka sanaag laga yimaado Hargeysa loo imanay marka laga yimaado togdheer shaqaalaha anshax marintooda halkaas aan ugu qaadnay muddo jimaan sameynay gobolada dalka gudiyaanu ka sameynay kullay goliga wakiilada tiino shaqaaluhu dibaahiyo way qabaan idinka la idiga sugaya iyo dalka qaranka dhanba ka sugayaan taasina waa siyaasad qaran noo wada taala wixii xeerarada sameeyeen wixii amadman lagu sameeyay shaqaalaha dhibaato keenay wixii faa'iido waaba kullay idinka idin saartay guddiga arrimaha bulshada aad iyo aad baad u maasantihiin wadii ka madcina guddidan kullay ku wareejin cidii kale wax ku darayso bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyn ilaahay baa mahad leh mar labaadka waan idin mahadnaqaynaa guddida arrimaha bulshada golaha wakiilada gaar ahaan xildhibaan Aamina Cilmi Fariid oo annaga iyadoo wasiira iyo anagoo komishaneera maalin baarlamaankana laga wada ansixiyay marka waan mahadsan tahay gudoomiyaha iyo agaasimaha guud baa inta badan sheegay waxyaabaha hay'adda shaqaaluhu qabato waxaan kabayaa waxyaabaha yaryar ay ka tageen waxa jirtay oo muddada anagu aan joognay wax shaqooyinka waaweyn la qabtay kamid ah in madaxweynuhu wakii soo saaray saacadaha shaqada in shaqaaluhu ay saacado badan shaqeeyaan marka taas hay'adda shaqaaluhu waxay ku leedahay kormeer iyo korjoogteyn waan kormeernay dhammaan wasaaradaha waddanka oo dhan iyo hay'adahaba sidoo kalena si saacadaha loo ilaaliyo shaqada waxa jirtay in wasaaradaha qaarkood u sameynay fingerprinter aanu doonayno inaan dalka oo dhanba ka sameyno hay'adda shaqaalaha ku xidhan oo hay'adda shaqaaluhu ay kala socotaa attendance-ga shaqaalaha dawladda ilaa 7-8 baan nimanka marinaynaa pilot project laakiin kuwa kalena insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan iyagana gaadhno waxa kaloo kamid ah inaanu ka shaqeyno iyaduna shaqo aad u weyn ahayd filing systemka shaqaalaha dawladda in la hagaajiyo wasaarad baan shaqaalaha dawladda u galnay maanta archiveska wasaaradaha oo dhan si qurux badan bay u dhisan tahay marka wixii talo iyo tusaalaaba waanu iyadana waanu runtii ka qabanay shaqo fiican bay haytaa soo la qabtay waxyaaba kale iyaduna qabsoomay shaqooyinka waaweyn waxa kamid ahayd in tababar joogta loo sameeyo oo aan kaasi istaagin markii saddexaad maraya HR miska wasaaradaha madaxa shaqo wasaarad kasta waxay leedahay iyo hay'ad kasta qof HR oo jooga wasaaraddaas marka kuwaas maadaama hay'adda shaqaalaha si toos ah ula shaqeeyaan waxaan u sameynaa tababar joogta marka iyagana say hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda si fiican isugu xidhan iyagana tababar fiican baa loo sameeyay runtii marka kulli iyaguna shaqooyinka weyn qabsoomay kamid ahaayeen inahaasaan ku koobaya waa mahadsantiin iyo tiimka ku sii daray wixii kale faahfaahin loo baahnaa wuxuu baan ku dari lahaa saa ay sheegeen waxyaaba muhiimadda ugu weyn markii aan nimaan aragnay waxa kamid ahayd filing systemka shaqaalaha dawladda wasaarad kasta waanu tagnay waxaana la hubiyay qof kasta shaqaale dawladeed inuu file updated oo macluumaadkiisa dhammaan ku jiro sidoo kale HRMIS-ka human resource
information management systemka aynu ku shaqayno iyo waxaanu soo eegaynay faylka qofka inuu isleeyahay shaqaalihii labadaasi oo qofka shaqaalaha systemkiisu updated yahay waxaa noo soo baxday HRMI systemka sidii loo sameeyey shaqaalaha dowladda markii wax la diiwaan geliyay 2018 ayaa biometric systemka loo sameeyey xilligaa ilaa iyo hadda markii ay lama update gareyn waxaa naga soo baxay qof shaqaale oo bari hore shaqada ka tagay systemkiisa kaga jira mid geeriyooday oo ka buuxa deedna campaign kalaan sameeynayo inaanu systemkii clean garayno update garayno hawshaasina markay noo socotaa si fiican ayay u socotaa si qof kastoo shaqaali faylkiisa hard copy-ga iyo kiisa soft-ga inay si fiican isu yeeshaan shaqo runtii aad u baaxad leh weeyaan oo gacanta hadda lagu hayo sidoo kale saad la socoteen shaqaalaha dawladda horta waxay ay mas'uul ka tahay waxa loo yaqaano in qofka muwaadinkii uu adeeg helo way adeegga waxa bixiya shaqaalaha dawladda haddii shaqaalaha dawladdu adeegga muwaadiniinta ay si fiican u siiyaan taa macnaheedu waxa weeyaan shaqadeedii si fiican bay u qabsoontay annagoo halkaa ka duulayna ayaa waxaa jira barnaamij loo yaqaano maamul daadejinta maaha maamul daadejintii dawladaha hoose wadeen ee waxbarashada iyo caafimaadka ku saabsanayd laakiin adeegyada wasaaraduhu ka qabtaan magaalada Hargeysa ay ku qabtaan in gobolada iyo degmooyinka loo daadejiyo deedna waxaanu sameynay feasibility study aad u baaxad lahayd oo waxaan ogaanay adeegyada muwaadiniintu ugu badan yihiin gobolada uga soo safraan ee Hargeysa u yimaadaan iyo waqtiga ku qaadato dabeedna 3 gobol ayaan isku daynay inaan ka bilowno Togdheer Awdal iyo Sanaag oo pilot project saddexdii caqabada ugu weyn naga hortay waxay ahayd si dhul dawladeed oo markaasi wixii renovation lagu sameyn karo iyo qalabkii waxa soo dhan waanu haynay mashruuc walba aan sable laaba naga caawinayay laakiin dhulkii baa wali gobolada qaar arqalad nagu yara ah oo naan wali helin laakiin wixii kale oo in meesha la hagaajiyo dib dhismihii loo hagaajiyo la qalabeeyo wixii oo dhan waa noo diyaar si markaa muwaadiniinteena ayna Hargeysa ugu soo adeegii dawladeed ugu daadego barnaamijkaas isna runtii aad u ballaaran ayaan runtii gacanta ku haynay number 1 ka hay shaqaalaha waxaan isku daynay qofka muwaadinka ah ee gobol jooga inaanu Hargeysa soo sarfin ee balogaraanta shaqada hay'adda shaqaalaha dawladda gobolkii lagu qabto laakiin wali waan u taaglaano dadku ilaa Hargeysa bay imanayaan iyagu xafiiska tuman u baan arkaynaa hatta kuna gobolka shaqada lagu qabanaya ku noqona hore ku yara aamin ma wuxuu yara moodayaa inuu marka haddii noo yimaadaan waxaan u qaban karnaa waan u qabanaa laakiin waxaan isku daynaa inaan gobolkaaga ku noqo halkaas lagu shaqeynaa shaqada lagu soo dhameystirayaa xildhibaan Aamina maalin ku lahaa dadka halkaas lagu shaqeynaa halka ku haya marka runtii aad iyo aad u mahadsantiin